hal celiye waadigii muddo daba socday inaad nagu soo biirto ee codsigaaga 2 jeer ay diideen Club of Rome iyo Scottish Temple haddana waxaa timid fursad aad isku muujin karto haddii aad daacad ka noqoto hawlaha lagu igmado waxaad heli xubinnimo buuxda magaalada waan ka sii baxaynaa waxaan gaarnay dhismo dhulka hoostiisa ka dhisan oo aad yaabisa qaabka loo dhisay saaxiibkay gaariga ayuu ku hadhay ana 2 nin oo xidhan dhar madow oo ay qoortooda suran tahay 3 gees cas ayaa intay garbaha ay qabteen ay ii kaxeeyeen qol madow oo iftiinka qudha ee ka baxaya yahay shamac waxaa goob madow soo fadhiya nin darajadiisu tahay 33 oo magaciisa uu sheegay Paul Milan waxa uu weydiiyay inaan ku qanacsanahay inaan ku soo biiro ururkooda Dark Marrow anna hore ayaan ka aqbalay habeenkii halkaas ayaa xaflad weyn la igu sameeyay 3 habeen kadib anigoo sidii meesha ugu jira ayaa Paul waxa uu kaxeeyay qol madow deeto ilays ayaa lagu qabtay gidaarka waxaana la itusay khariidad madow oo ay cad yihiin 2 meelood waxa uu weydiiyay Paul 2 meelood ee cadmiyad garanaysaa waxaan ku iri waa midi waa geeska Afrika tan kalena waa bariga dhexe Paul ayaa igu yiri waa dhulka Soomaalida tan kalena waa Sham waxa uu raaciyay in khariidadan la sameeyay shirkii Berlin ka dhacay 1884 wuxuu kale uu sheegay arrin argagax igu riday Paul wuxuu yiri shirkaas waxa fadhiyay kii samada ka soo dhacay markuu arkay in aan fahmin ayuu igu micneeyay idinku shaydaan ayaad u taqaaniin wuxuuna sheegay in dhulka Soomaalida iyo Shaamba ay yihiin 2 noor ee u baahan in la dagaalamo si qorshahayagu u fulo markaas ay cabsi uga abuurantay waxaan jeclaystay inaan halkan iimaan waxaase cod gudaha igala hadlaya igu yiri xog badan aad ogaatida adkayso cidda ila hadlaysa ma garan ee bari dambe ayaan ogaan doonaa inuu igu shaqaysanayo xog ka awood badan kuwa aan anigu ku biiray Paul waxa uu dareemay in buuqigu furan yahay wuxuuna ii sheegay markaan korosalaanka kala sareynta in cabsidu iga baabi'i doonto laakiin la iga baahan yahay naf u hurid lixaad leh wuxuu si toos ah iigu sheegay baahida xilligan keentay in loo baahdo dad Soomaaliya oo gudaha ka dagaalama waqtigan waxa nagu adkaaday inaan dibadda kala dagaalano waliba wax walba waxay isbedeli doonaan marka la gaaro December 2016 waxaan jeclaystay inaan ogaado sababta xilligaas wax walba isku bedelayaan waxaad moodaa inuu maqlayo faqa gudahayga ka socda wuxuu ii sheegay in xog badan oo aan loo sheegin jirin xubnaha Dark Marrow aan nasiib u helay in la ii furo sirtan waxa la siin jiray inta darajadooda ugu hooseyso 21 cidda fashilisana xukunkoodu waxa uu ahaa dil waxa uu igu yiri hadda sixirkii aanu dhulkaas kula dagaalami jirnay waa uu naga istaagay 2012 waxaa kor u kacay quwadda ruuxda aadamaha oo halis weyn ku haysa qorshe weynaha aanu ku dhaxlayno awoodda dunida December 2016 marka la gaaro waxaa cirka ka soo muuqanaya xidig cusub oo awood badan xidigaasi marka uu soo daahiro ma shaqayn doono qorshe kasta oo aanu ku leenahay dhulka Soomaalida dagaalkii hore ee noo qorshaysnaa waanu fulin doonaa inta aan la gaarin 2016 dhulka Soomaalida waxaynu u qorsheynay in 5 maamul loo qaybiyo sidoo kale ku 884 aanu miiska soo dhignay in marka la gaaro 2020 aanu dhulka Soomaalida ka sameeyno 10 dawladood oo mid kasta midka kale cad ku tahay halkaas markuu marinaya ayuu joojiyay hadalkii waxaana ii sheegay in xogta inta hadhay la siin doono markaan fuliyo hawlgalka koowaad ee qorshaha gacanta la iga saaray qolkii mudooba ayaa iga soo saaray waxaana ii keenay qol dhiig ka urayo biyo ayuu madaxa igaga shubay waxaan markii koobaad u soo dhoofay dalkayga anigoo cadow ku ah 22 July 2017 ayaan ka soo degay madaarka Hargeysa cabsi ayaa soo dabooshay qalbigayga waxaas ay hore igu sii sheegeen wadanku inaanu lahayn sirdoon difaaca qolada qure ee la iga dardaaray inaan ka feejignaado waa qolo wadanka ilaalisa oo suuq iska joogta dadkuna aanay aqoon awoodooda iyo wajiyadoodaba judhiba 2 guri ayaan ka kareystay masalaha iyo jigjiga yar waa 2 xaafad oo aad hawlahaaga si fiican ugu fushan karto waxaan ku tala jiray inaan hantiyo dhalinyar badan oo gabdho iyo wiilal leh waxaan ku kasbanayaa lacag iyo indhasarcaad mustaqbal qurux badan ayaan u sawiraa labadaas gurina kulan ayaan ugu qabtaa hawlihii oo meel fiican ii maraya ayaa la ila soo hadlay waxaana la igu amray inaan tago gobolka Sanaag oo aan fuulo buurta cirshiida 2 habeenimo ayaan fuulay subaxii ayay fariin ii soo direen oo yiraahdeen xalay waxaad fuushay buurta sida sirta wadankaas waxaase la ii faray in aan degdeg uga soo baxo dalka oo noloshaydu khatar ku jirto taa dhacdaalo markaan maraya ayuu nin cawlan ii joojiyay buurta hoosteeda waxa uu igu yiri kuwa ku soo diray Sanaag ayaa awoodoodu ku idlaatay hadaad mar dambe timaadana waad eedi haddana fariinta gaarsi walaalahaaga madow cabsi ayaa igu dhacday waanan baqay ilaa aan ka degay madaarka Heathrow Paul Milan ayaan ku booqday xaruntii ururka si diiran ayuu ii qaabilay wuxuu ii sheegay in aan gaaray meel ay iyagu ka baqaan wuxuuna ku daray in ay Sanaag qorshe ka leeyihiin haddana waxaan kuu furayaa bab kale oo sir ah wuxuu yiri intaan ku mashquulsanayn dagaalkii Ciraaq halkan waxa laga taagay calan tawxiid leh waa calanka Soomaaliland waana garaweynay halka inaga hoos martay 1998 ayaanu ogaanay in awood halka ka soo baxayso arrintan ayay ka wada hadleen Mareykanka Ingiriiska iyo Israa'iil waxay yiraahdeen hadda aan la dagaalano
maraykankuna waxa uu yidhi aan eegno sida ay u soo baxayso awooddaasi haddana waannu garan laanahay si aannu yeelno wuxuu iigu daray in ay ciidamo geyn doonaan badda cas iyagoo abuuraya budhcadbadeed ay ka dhigtaan foodsaare iyo sabab ay ciidamadooda ku keenaan badda waxaanse arkayaa qorshihii oo u fulayay sidii bool iigu sheegay taas waxaa ka daran in ay maanta socoto wixii uu si cad iigu sheegay 2016 in ay Soomaaliland ka soo weerari doonaan dhinaca bari waxaa iluray in aan ogaado sababta uu u rabo dagaalka bari anoo aad mooday in jiirku isii damqayo waxaan ku iri maxay ilaa xadka muhiim idinku tahay inaad weerarkan qaadaan bool isagoo aan ii jawaabin ayaa eegay ergey kale wuxuu igu yiri walaal beeg ayaa ku furi doona bogaas beeg ayaa qaatay hadalkii wuxuu yiri waxaan ka fikiraynaa in aanu isku beegno qaska sanaagii qabsashada Qudus waxaan se weydiiyay waa maxay xiriirka ka dhaxeeya sanaagii Qudus waxa uu ii sheegay markii uu horeysay dunidan inay ku guuleysay faafinta jahliga iyo qarinta cilmiga dhabta ah qaar badan PhD iyo Masar ayaanu dhabarka kaga qornay haddana cilmiga runta ah waanu ka qadinay way yar yihiin cidda taqaana cilmiga sida dhacdooyinka dhulku isku saameeyaan iyo muhiimadda dhuleed ee ka dhaxaysa sanaag iyo Qudus qoladan muslimka waxa loo sii sheegay in marka ay caamiranto Qudus iyo Yathrib waa Madiine ay xidhmayso sirtan waxa haya in yar oo kamid ah dadka awoodda laga ilaaliyo Paul Milan ayaa ku soo noqday isagoo wardoonkayga ka jecel inaan amaradiisa qaato wuxuu igu yiri dhawaan ayaa dalkii ku noqonaysaa waxaanu ku boqri doonaa mataan degdeg ayaanu u rabnaa in aan beerno midho aynu mustaqbalka dhow goosano si aad u sumaysaan quluubahan maran waa inaad adeegsataa qalabkan aan ku siiyey waxa uu igu yiri markaad doonayso inaad biiso dalaga beeraha shinnida ayaa la bedelaa markaad doonayso inaad xumayso habu fikirka wanaagsanna waxa dadku akhrinaya ayaa la abuuraa xigmaawi shiinaysa ayaa laga hayaa haddii qorshahaagu yahay 1 sano bariis beer haddii uu yahay 10 sanana dhir beer haddiise uu yahay 100 sano carruur waxbar annagana qorshahayna erayay waa ka duwan yahay taas waxaanu ka cararaynaa ceedda galbeed ka soo baxaysa oo aan la garanayn goor ay dilaaci waxaa gebi ahaan isbedelay 2012 qorshe 300 sano noo soo shaqeeyay way adag tahay in aan maamulno xitaa doqmihii wax walba waxay u shaqaynayaan si lid nagu ah mana garanayno sida ay wax u dhacayaan waxa aan dalka ka soo degay anigoo sita buug badan oo falsafad ah